waxaa ka jira degmada Xariirad 3 dugsi oo kala ah dugsiga sare Aadan Bile, dugsiga hoose Cabdullaahi Boole iyo dugsi dhexe. waxaana dhigta arday lagu qiyaasay ilaa 800 oo arday. halkani waa dugsiga hoose Cabdullaahi Boole oo ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ka jira degmada Xariirad ee gobolka Salal. waxaana dugsigan wax ka barta in ka badan 500 oo arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho. haddaba Milay Aroora oo sidii caadadu ahayd ay dugsigaasi ka socoto hawlihii waxbarasho ayaa waxaan halkaasi kula kulannay maamulaha dugsigaasi mudane Faysal Xaashir Riyaale iyo qaar kamid ah barayaasha dugsigaasi kuwaas oo ku mashquulsanaa hawlihii waxbarasho iyo tartan ciyaareed ardayda dhigata dugsigaasi loo qabtay. waxaana tartankaasi ku loolamayay 7 fasal oo kamid ah ardayda dugsigaasi hoose. haddaba labadii sano ee u dambeysay ayaa waxaa soo ifbaxayay horumar ballaaran oo dugsigaasi ku tallaabsanayay marba marka ka dambaysa, iyada oo dib u habayn ballaaran lagu sameeyay dhammaan baaho adeegyada dugsiga sida qalabaynta xafiisyada dugsiga, bilic soo celinta dhismayaasha dugsiga iyo dayrkiisaba, dhismaha suuliyaal cusub kuwaas oo wax ka tari doona nadaafadda dugsiga. sidoo kale dhirbeeris iyo meelaha qashinka lagu gubo ayaa kamid ah waxyaabaha indhahaagu qabanayaan mar allaala markaad isdhex istaagto dugsiga hoose Cabdullaahi Boole. tarsamada ka jira dugsiga hoose oo say noo siiyeen dugsiyada nagu kala qaybin oo ku baxsan aad iyo aad ugu faraxsanay wana mahadcelinayaa. waxaan leenahay alxamdulillah. sanad dugsiga hoose Xariirad iyo macallimiinta iyo maamulaha darka ayna qaabisiiyeen ma aad ayaan ku faraxsanahay. guul baan rajaynaa inaan diyaar baa siin ma horalo yiri hangara log uma dhutiyo horalo soconaya hangara log uma dhutiyo horalo soconaya horalo yiri hangara log uma dhutiyo horalo soconaya. waxaan ku suganahay waa dugsiga Aadan Bile Secondary School. dhammaan macallimiintii oo department kasta ayaa halka ku sugan. marka haddii aan tafaasiil yar idinka siino dugsigu sidii uu ku bilaabmay iyo hadda heerka uu taagan yahay. sadugtii waxaan ku bilownay 3 macallin ayaan ku bilownay dugsigaasi. maanta wuxuu leeyahay 5 macallin hadba uu sii taraya dugsigu. marka arday 8 ku dhow tiradoodu ayaa waqtigan hadda dhigata laga bilaabo klaaska 9aad ilaa klaaska 12aad. marka alxamdulillah waxaan u mahadnaqaynaa dadka hiiliyo hooda la garab taagan qurba joogta deegaanka u dhalatay dalkooda wax u soo taraysa. marka waxaan leenahay Ilaahay ka jisaysiyo habka iyo maamulka wanaagsan iyo dhaqaalaha aad ku bixinaysaan dugsigan. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan leeyahay dugsi dadka ka soo baxaya waa dad deegaanka u dhashay, hadhow waa dadkii deegaanka afiyada. kaalinta wanaagsan ee aad ka qaadateena
ومد يدين قرن وأنا اللي فيه وجهي وأنا واحد موضة أنا قلنا هذا يدكم هذين النار وحيد ذلك يكرم كلامنا وانقبسن دون إن شاء الله وأنا وقبل دونا وأنا ستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعنا صالر كي دكسي السريع هذا البلاء اللي سميه لما قضب أيان ورانيا ككوبات وحا أنا مهد علينية قرب تشوف تطلقية قرنا هدوك كوكا للصغن دور كمشروع كفريسي دجاجنا ده كسوق شيدان وككو يهي أساس كي دكسي السريع هذا البلاء سويستا مشاركة معلمينتا ديركن وهذا آد أركتان كل كمرود اللي هو كمان دوناي ويسوونه آد لوجود دير صدي إيوه دوكسي الصندلون هذا إنه كمان قبل كاسيتي ما أنت حركتك كانوا كيس الدحات شبه الدحات لقد هرقليو دوكسي بلا مشاركة ديرك يوصل لك وهناك كل يلاوة بانوتشيدين يا قرب شوكته قارنك ay soo ururiyaan ku suurtageliyay masaariicda gaar ahaan ka maanta codsina waa ku darayaayo ka gudoomiyaha degmada xariirad ee uu soo jeediyay baanana taakiidinaya waa ogtihiin oo waxbarashadu kaliya ma aha macallin arday 10 siiya waxa waxbarashadu tayo yeelataa marka ardaygu macallin fiican helo buugii wax uu ka akhrisanayay helo maantana casriga cusub uu helo tiknoolajiyadii hora loo yidhi hangararaclog uma dhutiyo hora loo soconaya haddaan hana qadnayo deegaankeenii hirgalay hawshannu u taganahay hora loo soconaya hora loo yidhi hangararaclog uma dhutiyo hora loo soconaya